ama ha dhowaado ama ha dheeraado waqtiyada ka mid ah waxaan arki doonaa labada quwadood oo madaxa isla galay. Asalaamu calaykum. Waa 12 January. Kenya waxay joojisay mashaariic iyo heshiisyo ay la gelisay Chinaha. Muqdisho waxay xiriirkii u goysay wadanka Imaaraadka ay sotaka Imaaraadka. Waxaa socda bariga adduunka iyo galbeedka bariga dhexe madaqadeena aynu ku noolnahay Geeska Afrika. Isxulufaysi waaweyn baa socda. Waxaad moodaa in uu caalamku u sii socdo inuu qaybsamo bari iyo galbeed. Markaan saa u jeedo waxaan uga jeedaa in badan waxaa madaqada bariga dhexe ka socday dagaallo aad u badan ayaa ka socday. Waxaad moodaa hadda in caalamku u jeesanayo inay iswaajahaan labadii quwadood ee in badan kala wareegayay. In la isu soo bareero ayaa aad moodaa inay hadda u sii socoto. China waa quwadda dhaqaalaha ee Mareykan maanta midowga Soviet oo ka baxay meesha. Ruushka waxaan ognahay isaga laftiisu inuu hadda Ukraine uu ka badin waayay. Quwadda hadda maanta Mareykan caabin karta amaba uu arka cadawga koobaad ee istiraatiijiga ah waa China. China wadanka kaliya ee uu ku leeyahay saldhig military waa wadanka Djibouti. Wadamada kale caalamka inta badan wuxuu leeyahay heshiisyo dhaqaale oo intooda badan u badan maalgelin iyo amaah u badan. Hadda waxaad moodaa inuu caalamku u jeesanayo waajaha labada quwadood inay iswaajahaan. Waxaan arkaynay Muqdisho oo wasiirka arrimaha dibadda ee China ugu talagashay inay soo dhaweyso, laakiin se culaysyo badan oo soo waajahay oo waliba dhanka ka yimi dowladda Israel in ay China u bareeri weyday inay si toos ah frontka ay u soo gasho. Ama ha dhowaado ama ha dheeraado waqtiyada ka mid ah waxaan arki doonaa labada quwadood oo madaxa isla galay. Inaga markaa ka islaam ahaan amaba ka Somaliland ahaan maxaa inala gudboon? Waa su'aasha u baahan in wax badan la sii gorfeeyo, wax badan la sii weydiiyo. Labada dowladoodba waa laba dowladood oo markaan ka hadlayno dhinaca caqiidada iyo markaan dhinaca diinta ka hadlayno waa laba dowladood oo midkoodna aanu islaam hayn. Laakiin marka laga hadlayo China iyo Mareykan marka laga hadlayo waxa weeye waa laba dowladood oo aan isku doorsi lahayn. oo macnaheedu waxaan ka wadaa China waa dowlad shuuciya, diin ahaanna waxa weeyaan waa dad Buddhism bay u badan yihiin. Ahlu kitaabna maaha. Dhaqanka marka islaamka laga hadlayo dad ay isi soo ama isfahmi karaan ama wada noolaan karaan amaba ay si uun nolosha isula jaan qaadi karaan. China maaha umana dhowa. Waxaan ognahay wadanka China waxa ku nool malaayiin muslimiina baa ku nool. Waxay ka mid yihiin meelaha ugu daran ee qof islaami uu ku noolaan karo wadanka China. Marka laga hadlo islaam guud aan ka tagnaba waxaa jira dad muslimiin ah oo Chinese oo Rohingya la dhaho iyo dad muslimiin oo Turkistan la dhaho asal ahaan Turki ka soo jeeda iyo dad Chinese oo Rohingya la dhaho oo iyaguna islaama. Dadkaas waxaa loola dhaqmaa sida ugu daran qof bin aadan ah iska wadaaya qof bin aadan xataa xayawaanka aan loola dhaqmin. Labada dowladood ama labada quwadood waqtiyada ka mid ah way iswaajihi doonaan. Haddana caalamku wuxuu u sii samaysmayaa inuu frontskaas ama xulufaysiga inuu kala raaco. Marka si guud ahaan islaamka laga hadlayo iyo si gaar ahaan Soomaaliland laga hadlayo, danta koowaad waxay ku jirtaa in dadka la isfahmi karo ama la wada noolaan karo ama aan idhaahna ahlu kitaabka in la taageero ama laba front inaad kala raacdo hadday ku tahay inaad raacdo ka dhow inaad raacdo ka la noolaan karayso inaad raacdo ka heshiis idin ka dhaxayn karaya inaad raacdo xataa ka haddaad dagaalantaan aad qiyamuun isku soo gaari kartaan inaad raacdo ayaa meesha imanaysa. Marka Geeska Afrika wuxuu u qaybsami doonaa bari iyo galbeed. Waxaan ognahay dagaaladii adduunka soo maray kii koobaad iyo ka labaad taariikha la sheego. Caalamku xulufaysi buu kala baxay. qolo Axis powers baa la odhan jiray, qoleen alliance baa la odhan jiray.
dagaaladii adduunka soo maray oo dhan waxaan si qunyara ama si tartiiba aan ugu sii gudbaynaa inaan labada xulufo la kala raaco oo hadda markaa boos laga sii daydaydo. Somaliland hadda maanta way iscadaysay oo hadda xulufaysigan iyo dowladahan iminka Somaliland aqoonsaday waxa weeyaan waa hordhicii taxalufka weyn ee mustaqbalka soo socda. Dagaalka adduunka ku soo fool leh ee weyn, ilaahay baa weyne sinaba aan looga badbaadi karaynin in boos hadda laga sii xadxaadho. Ma nihin dowlado quwad leh, ma nihin ciidan male nagama baahan doono, laakiinse mowqaca loo baahan yahay waa mowqiyada istiraatiijiyadeed